guud ahaan Soomaaliya waxaa ka socda dadaalo muhiim ah oo lagu xoojinayo caafimaadka carruurta. Talaalka ayaana ka mid ah. Talaal kasta oo la bixiyo wuxuu siinayaa ilmo kasta difaac, rajo iyo warsan. Nasiib daro qoysas badan ayuu warsankan gaarin. xanuunada sida qoorgoyska, gowractada, jadeecada iyo dabeesha ayaa weli waxa ay aafeeyeen carruur badan ama naftooda ku waayay. talaalka oo la dhammaysta wuxuu ka ilaalinayaa carruurtaada cudurrada halista ah. talaalku waa ammaano, waana lacag la'aan. waxaad ka heli kartaa xarun kastoo caafimaad ee kuu dhow. waxaan imaaday isbitaal Martiino shalayto cunugteeyo 5 sano jirto geedan iga soo dhacay qoorweyga oo la dhahayo ka hadda talaal noo wax taray waa ogaaday insha Allah hadda ka baad wixii aan dhalaan talaal doonaa talaal wax aan tarayna hadda aan fahmay. cudurkan wuxuu ka bilaabay isbitaalkan bisha labaad ee sanadka hore 2024 waxaa soo booqatay beeshano gaarayo 1000 oo isugu jiro carruur iyo dad waaweyn rag iyo dumarba. waxaa naga intaan xasuusto geeriyootay 51 kaas ka mid ah. inta kale waa badbaadeen waxay noogu yimaadeen qaasaan magaalada Xamar iyo magaalada banaankeedaba iyo goboladaba. waxaan dhihi karnaa dhibaatooyinka weyn hadda aan soo aragnay hooyinkeena hortaagan in talaalka qaataan waxay kaga cabsi qabaan inuu keenayo waxyaabo ay ku arkaan carruurtooda ka mid tahay qandho. waxaan qiyaasi karnaa in faa'iidada talaalka ka weyn tahay labadaas maalin oo ilmaha qandho hayso. hadda waxaan soo aragnay ilmaha jadeeca ku dhacdo 10 biri camal qandho hayso qaar sanbabadu ka gaaraya. waxaa kaloo soo aragnay ilmo ay ku dhacday cudurka qoorgoyska oo naftooda halis weyn qaarna ay u dhinteen. marka talaalka waa muhiim, waa badbaadiye naf, wuxuu ka hortagaa cudurro badan marka waxay kula talaa bulshadeena ka hortag ayaa ka fiican daaweynta. marka talaalka hala qaato si ubadka loo badbaadiyo. waa mahadsantiin. fadlan tag xarunta caafimaadka ee kuugu dhow. talaalka u dhammeey carruurtaada. talaal kasta wuxuu xambaarsan yahay warsan, waana xaq uu ilmo kasta nagu leeyahay.